حديث كان سدح صدنات عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال وحيري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول كلا وحور هاي لا يزال كمزول المؤمن قفك مؤمن كأ في فسحة واسعة منه كغسغنيه من دينه دينك سحجده ما لم يصب انتو سن أصيب دما ليك حراما أو حارانا نبي عليه الصلاة والسلام حديث كان وحوك هضلايا قفكم مسلم كأ وقفكم مؤمن كانوا اسكي إلى ليك يعني نبي عليه الصلاة والسلام وحوليه قفكم مؤمن كمزول آيو inuu kaga sugnaado diinkiisa xaggeeda waasacnama iyo ballaarnaan inuu kaga sugnaado kama zuulaayo intuusan asiibin yani dhiig xaaraan ah qofka hadduu ku dhaco dhiig xaaraan ah hadduu qof dilo oo xaqdar uu ku dilo diintiisa xaggeeda ciriiri uu kaga sugan yahay qofkaas marka qofka muslimka inuu iska ilaaliyo dhiigga xaaraanka ah oo Rabbi subxaanahu wa ta'ala xarimay marka nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahay qofka kama zuulaayo inuu ka sugnaado diintiisa xaggeeda inuu kaga sugnaado waasacnama iyo ballaarnaan iyo meel walba uu qaban karo intuusan dhiig xaaraan ah uusan ku dhicin hadduu mar dhiig xaaraan uu ku dhaco oo gacantiisa wasakhowdo qofkaas diinkiisa ciriiri uu kaga sugan yahay sida nabiga calayhi salaatu wasalaam uu tilmaamayo